daawadayaal ku soo dhawaada niyad sami iyo kalgacayl. Maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsanaan doonaa ayaan waxyaabo badan kaga baran doonaa waddanka Norway. Waxaa idiin daadiin doona anigoo ah Maxamed Aadam. Norway ama boqortooyada Norway waa waddan ku yaalla qaaradda Yurub. Waddankaasi wuxuu xuduud la leeyahay wadamada Sweden, Finland iyo Ruushka. Waddanka Norway waa waddan aad u dheer wuxuuna ku dhow yahay meesha adduunka u dambeysa. Waxaa jira meelo aan qoraxdu ka dhicin. Norway waa waddan aad u durugsan oo jira 800 sano ka hor. Dad waxaa deganaan jiray barafka ku safri jiray, gaar ahaan kuwa Norwiijka Viking ah. Waa dad markasta raadin jiray dhul cusub. Caasimadiisu waa Oslo. Luqadda rasmiga ah waa Norwegian. Badku waa 385,207 kiiloomitir. Wuxuuna kaga jiraa qaaradda 67 wadamada ugu dhulka weyn caalamka. Tirada dadkiisu waa 5,328,212 qof. Gobolladu ka kooban yahay waa 5 gobol oo waaweyn oo loo kala qaybiyo Northern Norway, Southern Norway, Eastern Norway iyo Trøndelag. Diinta 69.9% waa dad Kirishtaan ah. 3.3% waa dad Muslim ah. 3% waa Yuhuud. 17.4% waa dad bilaadiin ah. Dowladdu waa dowlad boqortooyo waxaana boqor ka ah Harald of Norway nin la dhaho. Sidoo kale ra'iisul wasaare waxaa ka ah nin la dhaho Erna Solberg. Fadlan muuqaalkan hadduu ku qanciyay subscribe garee, like, share intaana ku soo dhufo.